inagoo isku dulaynayna inagoo isu bixinayna inagoo ku kalsoon waxa ilaahay agtiisa yaala in aan maadaama ilaahay uu xayiyun kariim alla waa xishood iyo yaxyax badan yahay waa kariima waa deeq badan yahay addoonkiisoo gacanta kor u qaatayna ma soo celiyo saa darteed maadaama ay xilliyadii la ducaysanayay tahay waxaan jeclaysanay aniyo aboowa cabdirashiid inaan idiin soo gudbino kayfiyada ay dadku ilaahay markay baryahayaan gacanta loo qaadahayo qofka muslimkaa markuu ilaahay baryahayo oo ducaysanayo aadaab iyo waxaa laga rabaa akhlaaqiyaad midda koobaad oo aadaabta waxaa weeye in uu ilaahay amaano lamber 1 midda labaad waa inuu nabiga ku saliyo midda saddexaad waa inuu qiblada u jeedsado midda afraad waa inuu gacanta soo qaado kayfiyada gacanta uu soo qaadina waa inuu sidaa u soo qaado waa isjeedinayaa waa inuu gacanta saa u soo qaado qaybta hore ee faraha waa inuu soo xoodo wax yar wejigiisa waa inuu ku aadiyo kolkuu wejigiisa sidaa ugu aadiyo ayaa la rabaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga oo ku kalsoon ducadiisa inuu ilaahay aqbalahayo inuu ilaahay baryo subxaanahu wa tacaala ilaahay uu weydiisto waxa uu jecel yahay labada daaroodba khayrku ugu jiraan waxaana usii fiican addoonku inuu dembigiisa qirto isagoo taa'ib ah oo dembigiisii qirtay inuu ilaahay baryo kayfiyada marka ka sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam gacanta uu u taagi jiray markuu ilaahay baryahayo waa sidaa kayfiyo kaleeto oo nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam waxaa jirta kolkii taraa lagu jiro roob doonta oo uu nabigu gacanta kor u qaadi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh inta kale laakiin waa intaa haddaad aragto qof gacanta iska soo qaatay sida qaar dadku ay leeyihiin sidaa qaarna sidanay iska dhihi qaar sidanay iska dhihi kayfiyaadkaas oo dhan sax ma aha marka cibaadadana shayga cibaadadaana waxaa la yidhi koo waa inuu ikhlaas yahay waxaan jeedaa inuu qofku niyeysto waa inuu ikhlaas yahay waa inuu sawaab yahay oo hortaan nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam shuruudaasay cibaadadu leedahay ducaduna waa cibaadooyinku ilaahay ugu jecel yahay bay ka mid tahay oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam adducaau huwa alcibaada isagaaba cibaadadii ah waana waa silaaxa qofka mu'minka ah qofka muslimka ah qofka mu'minka ah uu wuxuu doono oo dhan uu ku heli karo جزاكم الله خيرا انت سندونا ينا نسو قدنا والله يقول الحق ويهدي السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته